saaxiibaya maanta waxaynu isla eegi doonaa saddexda qaab ee ugu fiican lacag uga sameyn karto AI videoska adigoo isticmaalaya Sora 2, OpenAI iyo VEO3 ay leedahay Google Gemini. Waxaynu isla eegi doonaa markaa waxa uu midka kale kaga fiican yahay iyo saddexda qaab ee aad lacag uga sameyn karto. Marka hore aynu isla eegno muuqaaladan aad arkaysaan ee feerarka noqday waa AI videos lagu kala sameeyay VEO3 iyo Sora 2. kadib markii aynu sheegno labadooduba midka kale waxa uu kaga fiican yahay waxaad awood u yeelan doontaa inaad si xirfadaysan oo dhammaystiran aad u isticmaasho. kadibna saddexdan talaabo aynu isla eegi doono ayaad waxaad uga sameyn kartaa income adigoo isticmaalaya markaa Sora 2 iyo VEO3. waxaad sameyn kartaa fiidiyoyo oo trending ka noqda Instagram-ka, YouTube-ka, Facebook iyo waliba TikTok-ka. fiidiyoyo aad u soo jiidasho leh oo dadku ay aad u jeclaanayaan ayaad ku sameyn kartaa labadan aaladood. waxaynu kala qaadi doonaa isbarbardhig ama comparison-ka labadoodan aan ku sameynayno laba shay. waxaynu ku eegi doonaa xagga markii la sameynayo videoska entertainment-ka iska caadiga ah. waxaynu eegi doonaa midkeebaa ku fiican. marka kalena waxaynu usoo noqon doonaa dhanka xayeysiinta markii aynu sameynayno waxaynu isla eegi doonaa labadooda midkee fiican. haddaynu u nimaadno dhanka contentiga caadiga oo entertainment ah ama se ha noqdo sida dhalinyarada inta badan aad ku aragtay meelaha iyagoo daanyar waaqica nolosha ee jirta sameynaya. markaad videoska noocaas oo kale sameynayso waxaa ku fiican VEO3 markay noqoto entertainment ama documentary aad ka hadlayso ama waxyaabo qaar oo iska funny aad ka hadlayso waxaa ku fiican inaad ku sameyso VEO3. haddii ay noqoto markaa inaad laakiin sameyso xayeysiintaas oo aad isticmaalayso dadka celebrity internationalka inay brandkaaga ku xayeysiiyaan ama ganacsigaaga aad uga faa'iidaysato halkii aad xayeysiin lacag ku bixin lahayd dhalinyarada caanka oo lacaga fara badan kaaga bixin lahaayeen. hadda waxaad awood u leedahay in la sameeyo ama lagu sameeyo videos dadka kubadda ciyaara ama sportiska caanka ama dadka kale fanaaniinta celebritiska dadkaas oo dhan inay brandkaaga ku xayeysiiyaan. Sora 2 ayaa ku fiican. marka maadaama aynu hadda ogaanay midka kale hadda awood ahaan wuxuu kaga fiican yahay ka kale waxaan isu taagi doonaa haddaba saddexda shay ama labada shay ee aad lacag uga sameyn karto video AI oo aad labaduba kugu diyaarsan yihiin oo aad kii aad rabto aad wax ku sameyn kartaa haddii Sora 2 aad rabto iyo haddii waliba VEO3 aad rabto. markay noqoto xagga speedka waxa mar walba ku wanaagsan oo kaa caawinaya VEO3 inuu speed ahaan kaga fiican yahay Sora 2. haddaba imika waxaan isla dul taagi doonaa inuu eegi doonaa qaabkee lacag uga sameyn kartaa adoo adeegsanaya labadooda. soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Khalid waxaana aasaasaa Hirgeli AI. Hirgeli AI wuxuu u shaqeeyaa dhalinyarada xiiseynaysa inay si bilaash ah ku bartaan AI-ga iyagoo heli doona templateska iyo waliba promptskan isticmaalayno free community-gan iyo videoyo dheeraada iyo Zoom aan mararka qaar soo galno. sidoo kale Hirgeli AI waxa uu shaqeysaa ganacsatada xiiseynaysa in AI setup loo sameeyo kaas oo shaqooyinkooda faraha badan leh uu AI u sameyn doono degdegna looga dhigi doono. haddaad tahay qof xiiseynaya ganacsada in shaqooyinkiisa uu AI u qabto uu degdeg uga dhigo fadlan qaybta book ee meeting dooro kadibna kulan sameyso wax walba oo ganacsigaaga ku saabsan aynu ka wada hadli doonaa iyo sidii AI ugu qaban lahaa. waxaad isticmaali kartaa content creationist oo madadaala ama waaqica ka hadlaya sida videoska aad aragteen dhalinyarada daanyarka isku ekeysiiya ee waaqica nolosha ka hadla. videos trending noqdo oo TikTok iyo YouTube iyo waliba Facebook aad iyo aad dadku ay uga daawadaan oo ka helaan ayaad sameyn kartaa adigoo isticmaalaya VEO3 kaliya inay ka xigto promptiga aad rabto. qaabka labaad ee aad uga sameyn karto waxay tahay in aad goobaha ganacsiyada aad tagto adigoo isticmaalaya Sora 2 maadaama xagga xayeysiinta ay ku fiican tahay. goobaha ganacsiga inaad tagto u sheegto tiraahdo xayeysiin ayaan idin sameyn anigoo kaliya ka qaaday $20 ama $10 xayeysiintaas oo brandskooda oo sideedii ah oo AI-gu soo saaray isagoona sawirka brandskooda uusan waxba ka bedelin awoodna u siinaya in brandskooda ay u xayeysiiyaan sida Messi oo kale, Shah Rukh Khan oo kale dadyabaha celebrity internationalka awood u siinaya. marka adigoo u sheegaya intii ay dadka celebrity-ga ay lacaga fara badan uga qaadan lahaayeen xayeysiin yar waxaad u sameyn kartaa in aad contract la gasho muddo bil ah uu celebrity kala duwan ay u xayeysiiyaan brandskooda walibana uga dhiga qaab madadaala oo dadku ay xiiseynayaan adigoo isticmaalaya Sora 2. siyaashuna way ka maarmi doonaan xayeysiimaha lacagaha qaaliga looga qaado adiguna waxaad noqon doontaa in aad ganacsadayaasha u tagtid oo aad u sameysid videoska ay rabaan. bilow maanta kuna bedel hal abuurkaaga ama xirfada yar ee aad maanta baran karto lacag.